السلام عليكم. maxaad u qaadaa ballan aadan ka soo bixi karin? maxaad dusha ugu wadataa weli dembi aad mar hore ka toobad keentay? dareen in aad dembiile joogta aad tahay mar walba, oo arrinkan xitaa saamayn toosa uu ku yeelanayo qaabkaad u cibaadaysanayso iyo aragtida aad ku fiirinaysa naxariista ilaahay. maxaad isugu mashquulisaa dadka oo dhan in ay hagaagaan shay aanan adiga gacantaada ku jirin? aad isu saartaa culays dadka oo dhan in ay saalixiin wada noqdaan. maxaad isugu dhejisaa xiriir sanadyo cadaab ah ku geliyey hami habeen iyo maalin ah ilaa aad qarka u fuushay in aad halaagsanto, laakiin weli aad isaga jirto sidii qadartaada adduunkan in uuba yahay xaaladaas micnaha cadaabka inaad ku jirto weliga. maxaad ahmiyad weyn u siisaa sida ay dadku u arkaan afcaashaada, qaabka noloshaada aad u wadato, nolol maalmeedkaada, waqti aan ognahay ka dharagsannahay dadka oo dhan inaan la raaligelin karin? arrinkan ma awoodid adiga, ilaahayna kaama dalbanin inaad isku mashquuliso, taasoo ah inaad dusha u ridanayso shay aadan adiga awoodin. haddii aad aragto qof micnaha waxuun samaynayo, naftaada aad dhaleecaysa sidii adigaba inaad samaysay, adiga inaad mas'uul ka tahay qofkan, shay micnaha aanan gacantaada ku jirin. mar kale isi saaridda culays aadan awoodin. maxaad dusha ugu ridataa micnaha hamiga inaad adiga dadka noloshooda socodsiisa, sidii micnaha inaad adiga abuurtay. hebel yani xaalada adag ayuu ku jiraa, waan garanay. heblaayo waa sidaas. hebel wuxuu ahaa inuu gabar fiican guursado, alle heblaayo waa gabar fiican, waxay ahayd nin fiican inay hesho, gabadhaas way qurxantay, maxaanan ilaa hadda loo guursanin, oo aad ka murugoto sidii inaad ilaahay kula xisaabtamayso kale qaabka uu noloshan iyo qadartiisa ay u socoto. inaad dadka adiga kaalmayso, hadal wanaagsan iyo wixii aad awoodo, iyo inaad dusha u ridato mas'uul sida inaad ka tahay oo kale noloshooda inaad socodsiiso oo aad soo farageliso mid yar iyo mid weynba. runtii waa shay xanuun badan aadna awoodin. dad waxaa jira runtii ku nool xaalad cadaab ah, yani haddii uu arko qof xanuunsan uu murugoonayo, micnaha muruga uu murugoonayo ah muxuu ugu dhacay kan, micnaha muxuu u jiran yahay, micnaha isweydiin sida qadarta ilaahay inuu isweydiinayo kale. hebel muxuu u jiraday, wiilkaas qofkaas micnaha muxuu naafo u yahay. yani haddii aad fiiriso ayadda ugu dambaysa suuratulbaqara ee munaasabadaha badan ee loo akhristo markaad seexanaysa galabtii subaxdii, dikri badan ka mid ah waxay ku bilaabanaysaa laa yukallifu allaahu nafsan ilaa wuscaha. ilaahay naf kama dalba, mana saarin waxaan ka ahayn waxay awoodo. waxaadan awoodin adiga lagaama dalbin. qadarta ilaahay siday lagaama dalbin, micnaha dadka siday u nool yihiin adiga inaad mas'uul ka ahaato. qaybta dambena rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih. ilaahu dusha ha noo saarin waxaanan awoodin. runtii haddii aad u fiirsato waa mixnad. sidaan sheegnay dad waxaa jira cadaab ku jira noloshoodii, yani noloshoodaan adduun seegay keliya micnaha dadka ka murugaysan sida ay yihiin. ilaahay kuma saarin mas'uuliyadda dembi qof kale. walaa taziru waasiratun wisra ukhraa. islaaxa, hagaajinta, amridda, wanaagga, reebidda xumaanta iyo qaabkan micnaha way kala yihiin. xadiid uu wariyey xudayfa binulyamaan gaarayana darajada xasanka, rasuulku wuxuu leeyahy sala allahu calayhi wasalam laa yanbagii lilmu'mini an yudilla nafsah. qaaluu wakayfa yudillu nafsah? qaala yatacaradu min albalaa'i lima laa yutiiqu. ma habboon ayuu yidhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam qofka mu'minka inuu naftiisa duleeyo. way weydiin macnaa shay cajiiba oo qofka siduu naftiisa ku duleen yaa rasuul allah. yatacaradu min albalaa'i wax micnaha inuu lugaha la galo shay uuna awoodin, inuu lugaha la galo shay aadan awoodin. hadda markaan yani mawduucan diyaarinayay sharaxa laga bixiyay culimada xadiidkan ay ka bixiyeen, waxay leeyihin xitaa haddii aad ku nooshay meel, haddii aad wanaag amartoo kale, alamru bilmacruuf oo kale, laakiin adiga dhib ay kaaga imaanayso shay aadan awoodin, waddan kale aad ku nooshay oo kale, lagaama rabo inaad samayso, maadaama inaad xabsi gasho laga yaaba mushkilad badan inay ku soo wajahdo, micnaa naftaada aad duleynayso shay aadan awoodin. kaaruushi 1969 dalka Jabaan waxaa la diiwaan geliyay dhimashada nin dhalinyaro 29 sano jir ah. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso qof Jabaan ku dhintay waqtigaas yani muxuu ka dhigan yahay. dhimashadaas waxay bilow u ahayd diiwaangelinta xaalad ilaa maanta dalkaas looga yaqaano kaaruushi, dhimashada cadaadka shaqada awgeed. 3 dhakhtar oo dalkaas u dhalatay ayaa markii ugu horeysay buug ay alifeen ku diiwaan geliyay 1982 buug ku aadan dhimashada cadaadka shaqada kadib, badnida saacadaha iyo cadaadiska nafsiga qofka saar qofka shaqaynaya, tahluka inuu iskaliyo. rabbanaa walaa tuxamilnaa maa laa taaqata lanaa bih. sanadkii hadda aan soo dhaafnay ee 2023 dalkaas Jabaan isdil iyo shay la xiriira kaaruushigan dadka u dhintay waxay gaareen 3,000 oo qof. cadaadis isa saaridda shay ayna awoodin. waxyaabaha hamiga ku gelinaya runtii culays weyn ah, yani waxaa ka mid ah dib u dhigidda xalinta mushkiladaha adiga shakhsiga, micnaha mashaakilka noloshan ku soo wajahayo haddii ay isgaargaaraan waxay kugu noqonayaan micnaha buur hamiya mar walba aad ka fikirto, yani xalkoodana xitaa marka dambe uu kugu adkaado.
iyo xitaa wax badan ayaan maqalnay macnaha dib ha u dhigan hawlaha maanta aad qabanaysa berri dib ha u dhigin macnaha shayga ugu muhiimsan marka wax kale laga soo tago haddii aad u fiirsato waa macnaha xaaladda nafsiga ee ka dhalanaysa waxyaabahaas isdul fuulay is saarsaaran waxay kuu noqonayaan culays mar walba aad ku fikirto inaad xallisana ay kugu adkaanayso shayga ugu cabsida badan yani ma ahan in aad dusha u ridato yani wax aadan awoodin المشكلة waa natiijada ka dhalanaysa macnaha burburka kama dambaynta ka dhalanaya sida dadkaas dhintay oo kale qofkan cadaadis ayaa saaran uu iska indhatira ilaa marka dambe gab uu dhaho gabi ahaanba uu dhinto rasuulka waxa la yiri macnaha adiga hawshaada ka rasuul fiiriya فذكر إنما أنت مذكر أديك هوشاد معناه وإنad xasuusisa kaliya inaad u sheegto lasta عليهم بمسيطر معناه مسؤول kama tihid waxa ay samaynayaan فلا تذهب نفسك عليهم حسرات sidoo kale فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تجابه أنا ولا شيء قوين ودتك قلبك جلعسن آد اسكو مشغول دتك أوران معناه إني قرب استاك دتك أوران إني وحسيسة شيء إني أودين وأنا حس مر تي في أي داون جبت الجيابة معناه صاعد أما لبس ساعة إني دول فريضة أيضا كم رجيسن معناها وأروrinta tabarucaada dadka hebel ayaa sidaas hebel ayaa jiran oo ay ka murugaysan tahay macnaha waa isgelinta cadaab yani runtii inta badan dadka qalbiga wanaagsan ayaa arrinkan la kulma waa isgelinta cadaab macnaha shay adiga aadan awoodin dhinaca kale inta badan fiir haddii aad u fiirsato mashaakilka keena isnaca kala guurka asxaabta iyo ehelka waa in saaxiibtinimada iyo ehelnimada la saaro macnaha cadaadis ka weyn midda ay u qalanto midda ay awoodo iska lifid xadaaf yani waxyaabaha niyad xumada ka sii dhalanaysa kala taga ka dhalanayo haddii uu jiro nin dhalinyaro yani shaqo bilaabay oo kala hadda bilowga 20 ku fikiray macnaha inuu guursado noloshiisa sida ay noqon lahayd meeshii uu ku noolaan lahaa yar macnaha 22 jira laakiin laga dalba ka waran macnaha biil laga dalbo ama wax walba laga dalbo macnaha qofkaas ku noolaanay xaalad yani cadaab yani qof walba mas'uuliyad ayaa saaran ehl ayuu leeyahay laakiin runtii saarida mas'uuliyad ka weyn qofka waliba dhalinyarada hadda madaxa soo qaadayo kale يعني إن أيضا الجيابة معناها كأباهن إنها نولان كرتا إنها صارت عدالس كدلبشة إنها معناها والد كيستهاي وقدام بإسدرينسية كدبنا وكنا على معناها حالة دسرنتي عدادس كا أنا وحيابها أنقبوا إن شاء الله أن سمين دوننا يعني عنو جي هدو وحبرنا يمركو شقيسنا إن أون هبا يرتي اسكم مشغولين إن آبها وحسي كان سماء معناها حاجة بنعس أي بدل معناها قف كان نلال أن أوليه أصلا كان قف إنسان بني آدم مضح بنا من عروض dhalinyaradaas yani hadda soo weynaatay oo kale mas'uuliyad ayaa hortaala asaa ka shakhsi ahaan noloshiisa ayaa hortaala macnaha hadii aad aabatay intii aad awoodo in aadan dareensinin dambi ah inuu adiga yani ku garab istaaga mar walba ama dadadiyo kale qaraabada si loo dhaho wiilkaadi ayaa dadkaas macnaha garab istaagay shay macnaha uuna awoodin hadii qofkan uu awoodiyaa ahlan wa sahlan ka fiican laakiin runtii waa shay u fiirsasho leh maanta hadii aad aragtaana ka bulshadeena macnaha dhalinyarada hadda noloshooda bilaabayo ehelka kale qaraabada kale inay saaraan cadaadis ka weyn midda ay awoodaan laga dalba macnaha inay lacag soo diraan badan laga dalba macnaha in shay ayna awoodin noloshooda iyo nolosheedna macnaha labadaba ay meesha ka baxayaan yani hadii aad u fiirsato waxaad arkaysaa dhalinyaradaas marxalad ay gaari doonaan labada dhinacba ay gabaan marka يعني adiga ka aabo yani hada diyaad dhalinyarada tahay insha Allah mowduucan dhageysanayso insha Allah markaad weynaato macna ilaa had isku sii baragaraami hadii aad guursi ciyaal aad dhasho caruurtaada markay qaan gaaraan in aad kali shayga adiga duca aad u raacayso intii aad awood ee aadan yani aad khalaas in ciyaalka aad u dhalayso si kali adiga ay kuugu shaqeeyaan runtii waa shay markaad u fiirsato mixnada yani imbaraatoriyadaha xitaa markaad hadda u fiirsato qaabka u burburaan oo kale marka ka hadlayna isaaridda mas'uuliyadda معناه إمبراطورية مركي وينات إني اسمه وجس إني إذا عالمك مسؤول كتاعي عالم كأنه إلى كلي أيام مسؤول إلى أي بربرتو ميدوغي سوفيات كإمبراطورية دي إنجليز كعالم كأنت بدن كتلينجرتي أو كله وجزيرة ده صيرت هذا قبل ذلك هذا كم معناه لك وحيسمو وجن معناه دوش إني أريدن كران وحول بأدون كان كصعدة وأن حالد وجهه دهنا مرايكن معناه اسمه وجي بوليس كأدون كان إنه هي شالي تضل مثل هذا لاي كوحيان كترام وعيرت أنا يايري إن أم بلايين لعجة كوبحنا مال والبعالم كلالم والبضجال العالم كان كصعدة ولا هي معناه أنا وحدة كده مسؤول كما أهان دونه لولانا عالم كتاك وحنا جاكلي ملهن روش كدي يوكرين كدول أسجع أطالة يوكرينين تيني إزدفاع عن أيجا أطالة لكن أنا جمحان جاكلي مرة والبا إن أن معناه مسؤولية داس إسسار سيد أوليه sababtoo ah Mareykanku wuu daalay balaayin lacag ayuu ku bixiyay yani 2010 2011 sagaashamaadkii yani arrinkan Mareykanku wuxuu arkay in yani uu adduunka dhan awood inuu mas'uul ka yahay laakiin ugu dambeyn wuxuu arkay adduunka inuu mas'uul ka ahayn marka adiga ka bani aadam ahaan ka qof insaan muslim xor ah waxaad ogaataa
in aad leedahay qadar mucayan oo adkaysi ah waxa adiga aadan awoodinna in aadan yani isku mashquulinin mas'uuliyad aadan awoodin dusha inaadan u ridanin ilaahayna uuna kugula xisaabtamaynin shay adiga aadan awoodin bal xitaa fiiri hanuuninta ciyaalkaada adiga gacantaada kuma jirta arkada yani laba canuga walaale midna uu sidaas yahay midna uu sidaas yahay bal arkada yani caruur aabahood lagu tilmaamay macnaha sheekh hebel uu yahay laakiin sidii yihiin aad arkaysa ama caruur laga yaabo aabahood macnaha inuu dadka aan ku tahay hebel macnaha waa qof xun ah laakiin caruurtiisa ay yihiin dadka ugu fiican ugu akhlaaqda badan uguna diinta badan waa shay cajiib ah runtii sababtoo ah hanuunka adiga gacantaada kuma jiro adiga wixii aad awooddo inaad samayso nidaamkan adduunkan macnaha sida uu u yahay qaabka noloshan u soconaysa ilaah ayaa mas-uulka mawduucan aan uga hadalnay arrinkan انتهى نكويجهي عمر انشار السلام عليكم